بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحمد محمد أحمد دكتور بانا كسو دوادا جنال كينا يوتيوب كا إيو فيسبوك وكما سنتين داوشة إلى صعود كان للسعودين إن شاء الله ما أنتنا وحاسي ودينا برنامج كي هوري نوغسي السعودية أناتوميغا مادة أناتومي أياسي ودينا إن شاء الله هوري وحاكسو هذا اللين إسكينك أما مخاركا maanta insha Allah wali introductionkii anatomy ayaa ku jira maanta waxaa ka hadlaynaa human skeletal system ama khalfoofta bini'aadamka khaasatan lafaha waxyaabaha ay ka kooban yihiin okay intaas ayaa ka hadli doonaa human skeletal systemka jirka bini'aadamka sidaa wad ognahay wuxuu ka kooban yahay lafaha 206 lafood marka la fiiriyo adultska ama dadka qaangaarka caruurta way kala fay badan yihiin dadka qaangaarka marka la fiiriyo sababtoo caruurta jirkoodii aad ayuu u jilicsan yahay wuxuuna ka kooban yahay 300 lafood dadka waaweynkan wuxuu ka kooban yahay 206 lafood insha Allah barnaamijka maanta waxaan ku arki doonaa labadaas 206 lafood qaabkay ku imaadeen mid laf ayaa u xisaabin doona insha Allah taala barnaamijkan ayaa ku guud arki doonaa hada ka wada hadalno 206 qafood 206 lafood oo ka kooban yahay jirka bini'aadamka khaasatan adultska waxaa loo kala qaybiyaa laba qaybood oo waaweyn ah qaybtaas oo kala ah axial iyo appendicular axialka waxaa loo kala sii qaybiyaa ilaa qaybo badan oo kamid ah skull, vertebra, thorax intaas ayaa loo qaybiyaa appendicularka laba ayaa loo qaybiyaa ilaa 3 oo ah upper limbs, lower limbs iyo pelvic hadaa ka hormarno axialka waxaa dhahnay wuxuu ka kooban yahay guud ahaan lafihiisa 206 xabo wuxuu ka yahay waa 80 lafood ayuu ka kooban yahay 80 lafood ayuu ka kooban yahay axialka qaybta skullka guud ahaan waxay ka kooban tahay 22 lafood vertebra wuxuu ka kooban yahay 33 lafood thoraxkan wuxuu ka kooban yahay 25 lafood marka isku wadartooda waxay noqonaysaa 80 kaas lafood waxay ka kooban tahay axialka inta soo hartayna waa appendicularka okay axialka daa sii wadno skullka 22 lafood ayuu ka kooban yahay skullka waxaa loo sii qaybiyaa laba qaybood oo kala ah cranial iyo facial cranialka wuxuu ka kooban yahay 8 lafood facialkan wuxuu ka kooban yahay 14 lafood ayuu ka kooban yahay facialka okay vertebra waxaa sheegnay 33 lafood inay ka kooban yahay 33daas lafood laf ayaa ka horeysa waxaanu kala sii baxdaa ilaa 4 qaybta ugu horeysa waxaa la cervical vertebra oo ah qaybta ugu horeysa oo dhanka qoorta aadisan waxay ka kooban tahay 7 lafood ayay ka kooban tahay waxaa ku xigta thorax oo thoracic vertebra oo ah qaybta ku aadsan feeraha ayagana waxay ka kooban tahay 12 lafood ayay ka kooban tahay sidoo kale waxaa jiro lumbar vertebra oo ka kooban 5 lafood iyo sidoo kale waxaa jiro coccyx vertebra oo ka kooban ayagana 4 lafood afartaas lafood coccyx dad qaar waxay dhahaan waxay sameeyaan fused hal laf ay ka soo qaataan laakiin marka tiradan waxay keenaysaa 4 lafood okay thoraxka hadaa soo galno thoraxka waxay ka kooban tahay waa qaybta aadisan qaybta xawadka waxay ka kooban tahay 25 lafood 25taas lafood waxaa loo qaybiyaa ilaa 4 qaybood qaybta ugu horeysa waxaa la true ribs ama feero run ah waxay ka kooban tahay 7 lafood midig iyo bidix marka la isku darana waxay noqonaysaa 14 lafood sidoo kale false ribs ayaa jirto false ribs waxay ka kooban tahay 6 lafood waa midig iyo bidix sidoo kale waxaa jirta fallopian ribs oo ah 2 lafood oo marka la isku daro midigta oo 2 ah bidixda oo ah 2 ee waxay noqonaysaa 4 lafood marka waxaa jirta sternum la fulahay oo feeraha dhexda midigta iyo bidixda feeraha oo u dhaxaysa sternumka asagana hal lafood ayaa loo qaataa laakiin si caadi ah marka loo fiiriyo 3 lafood ay ka kooban tahay oo ah marka la isku wada dardaro 14 oo false ah 14 oo true ah 6 false ah 4 oo fallopian ribs ah iyo hal oo sternum ah 25 lafood sidaas ay ku noqonaysaa marka qaybtan waxaa ugu baxnay axial skeletal system oo ka koobnaa 80 lafood haatan waxaa galeynaa appendicularka waxaa sheegnay waxay u kala bixaysaa ilaa 3 qaybood oo ah upper limbs iyo lower limbs iyo pelvic guud ahaan appendicularka wuxuu ka kooban yahay 126 lafood 126 lafood ayuu ka kooban yahay appendicularka marka 60 laf waxay ka kooban tahay qaybtan la yiraahdo upper limbs waa 60 lafood 60kaas lafood siday u kala yihiin marka okay siday u kala yihiin hadaa ka bilaabno waxaa jirta clavicalka waa 2 lafood oo kooban midig hal ah iyo hal bidix ah oo 2 lafood ah sidoo kale scapula ayaa jira oo asagana 2 lafood ah sidoo kale humerus ayaa jirta oo 2 lafood ah radius ayaa jirta oo 2 lafood ah midig iyo bidix sidoo kale carpus ayaa jirta oo 16 lafood ah sidoo kale waxaa jirta metacarpus oo 18 ah
waxaa metacarpals aan dhahay oo 10 lafood ah sidoo kale waxaa jirta phalanges oo ah 28 lafood marka la isku wada soo daro waxay noqonaysaa 60 lafood okay qaybtaas waxaa uga baxnay upper limbs lower limbs marka lower limbs ayayna sidoo kale waxay ka kooban tahay 60 lafood 60 kaas lafood sidoo u kala kooban tahay marka aan galno waxaa dhanay laba lafood waxay femur ayaa jirta oo laba lafood ah oo hal lug midig ah iyo lug bidix ah sidoo kale waxaa jirta patella oo asigna sidoo kale midig iyo bidix oo laba lafood ah sidoo kale waxaa jira fibula oo asigna sidoo kale laba lafood ah sidoo kale waxaa jirta tarsal oo ah 14 lafood metatarsal ayaa jirta oo 10 lafood ah iyo phalanges oo sidoo kale 28 lafood marka tiradooda guud ahaan waxay isku imaanaysaa 60 lafood sidaas waxaa noo dhiman marka belviga ayagana waxaa loo qaybiyaa laba lafood sidaas waxay ku noqonaysaa marka 126 lafood oo ah appendicularka iyo axialka oo ah 80 lafood sidaas ay waxay isku noqonaysaa 206 lafood marka shaqadan lafahan hadda soo sheegnay maxay noo qabtaan laf walba waxay qabataa shaqo gaar ah marka hadda isku wada soo duubna lafaha jirka bini'aadanka guud ahaan waxaa jirto shaqooyin ay ka wada siman yihiin shaqooyinkaas ayaa sheegi doonaa insha Allah ilaa 5 shaqo ah shaqada ugu horeysa inay qabtaan waxay tahay framework inay sameeyaan qofka jirka bini'aadamka qaabkan oo hadda u taagana iyo qofka bini'aadamka qaabka uu sameeysan yahay waxa saamaxay qofka inuu saan u istaagnaado qaabkan uu noqdo waxay tahay lafaha waay qofka hadii lafo aysan ku jirin macnaha waxay noqonaysaa jirkiisa wax isku celinaya ma leh wax isku wada dhacsan ayay noqonaysaa marka ilaahay bini'aadamka wuxuu u sameeyay quruxdan iyo jamaalkan iyo joogan macnaha waxay korisan tahay waa lafaha lafa la'aanteed macnaha bini'aadam wax oo ahaa lahay ma leh koo shaqada sidaas ayay noo qabtaan tan labaad waxay tahay protection ayay noo sameeyaan oo xibnaha jilicsan ee jirka ku jira oo aadka muhiim ku ah ayay noo difaacaan tusaale oo kale taag soo qaadan maskaxda waa xubin aad iyo aad muhiim u ah waxaana noo daboosho lafaha skull bones ayaa kamid ah qaybaha maskaxda noo difaacdo sidoo kale xubin aad iyo aad muhiim u ah oo lafaha noo difaacdo waxaa kamid ah wadnaha sidaa wada ognahay waa xubin aad iyo aad u muhiimsan oo qofka bini'aadanka daqiiqad xataa uusan ka maarmaynin marka xubintaas aadka u qaaliga waxaa noo alaaliso lafaha la yiraahdo aan dhahe ribiska iyo sternumka ayaa noo difaacdo sidoo kale waxaa jirto sambabaha ayagana oo xubin aad iyo aad muhiim ah oo noo difaacdo lafaha iyo xibno kale oo aad aad muhiim ah oo noo difaacaan lafaha difaaca jirka ay qayb ka qaataan sidoo kale shaqada saddexaad ay noo qabtaan lafaha waxay noo sameeyaan blood cells ayay noo sameeyaan oo ah unugyada dhiiga ayay sameeyaan sidoo kale lafaha shaqada ay noo qabtaan waxay tahay movement ayay sameeyaan dhaqdhaqaaqa jirka ayay ka qayb ka qaataan sidoo kale lafaha waxay shaqo kale aad iyo aad muhiim ah noo tahay ay sameeyso waxay tahay waxay difaacdaa ama waxay keedisaa calciumka jirka ku jirto waxaa lagu keediyaa lafaha iyo sidoo kale minerals badan ay sidoo kale waxaa lafaha ayay noo keedisaa oo jirka muhiim aad iyo aad uga ah intaas haddaan functionka ugu baxno waxaa kaloo galaynaa typeska ama qaybaha loo kala qaybiyo lafaha waxaa loo qaybiyaa ilaa iyo hore waxaa usoo sheegnay 2 qayb in loo qaybinayo guud ahaan laakiin hadda marka qaabkay u samaysan yihiin lafaha qaabkay u samaysan yihiin structure ahaankooda marka loo fiirinayo waxay u kala qaybsamaa ilaa 5 lafood 5taas lafood markay aan ku fiirino structure ahaan qaabkay u samaysan yihiin lafaha 5taas marka waxay kaliin lafa dhaadheer ah oo loo yaqaan longibones waa lafa dhaadheer tusaalena waxaa u ah femurka waa lafaha ugu dhaadheer jirka ayay ka mid tahay sidoo kale waxaa jirta short bones ah lafaha gaagaaban waxaa jirta jirka lafa gaagaaban oo ku jirta waxaana ka mid ah carpalska sidoo kale waxaa jira flat bones ah lafa oo balbalaaran oo ka mid ah scapula iyo sternum ayaa tusaale u ah sidoo kale waxaa jira lafa oo aanan qaab lahayn sida waxaa ka mid ah vertebraha oo kale lafaha laf dhabarta iyagana waxay ka mid ah lafaha aan qaabka lahayn marka insha Allah taala intaas ayaa ku soo gabagabeynaa barnaamijkan ma ku sii dheeraanayno qaybta lafaha uu hadleynay intaas ayaa ku soo gabagabeynaa waa ku maasantiin daawashada iyo la socodka ana la socotiin hada billahi tawfiiq ma'a salaam